waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan haday habeenku tahay habeen waxaan wanaagsan hadii ay maalinku tahayna maalin waxaan wanaagsan siyaasadda quyar socodka ah ee wadanka Turkigu uu ku dhaqmayay 10 sano ee u dambeeyay waxay ahayd mid ay dunidu ku kala qaybsanayd qaybo badan oo wadamada adduunka kamidi waxay u arkayeen talaabooyin aan Turkiga anfacaynin isla markaasina aanu waxba ka ahayn siyaasadda caalamka halka wadamo badan ay si gaar ah ugu hayeen una arkayeen khatar soo koraysa oo ku taala bariga dhexe in badan oo Turkigu uu talaabooyin military qaaday haddana wadamada caalamka si weyn uma saameyn kaman uu qayb qaadan dagaalada ka soconaya bariga dhexe iyo kuwa kale ee dunida daafaheeda kala duwan ba ka qarxaya sanadka ka dambaysa inkasta oo Turkigu uu taageeray wadamo badan oo Carbeed oo ku yaala qaaradda Afrika iyo sidoo kale bariga dhexeba haddana inta badan wadamada jaarku khatar buuxda umay arkaynin hase ahaatee 2025 waxa uu muuqanayaa inuu wajahayo khatar badan wadamo badan oo markii hore ay ka jeeday siyaasadiisuna haatan is wajahayaan gudaha wadanka Suuriya waxa ka dhacay isbedel uu Turkigu hormuud u ahaa kaasoo uu taageerayay kooxihii wadankaasi dagaalka kula jiray Sunniyiinta Muslimiinta ah kuwaasi oo wadanka si weyn ula wareegay bacdi markii ay afgambiyeen kaligii taliskii Almaaniga ahaa ee wadankaasi inta badan hayay isla markaasina dhibaatooyinka siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo sidoo kale kuwii sirsifaynta ahaaba ka geystay kaasoo ay Suuriya si weyn u eeday isla markaasina ay wadamada reer galbeedku u haysteen inuu yahay dabadhilif aanay marnaba ka maarmi karin hase ahaatee haatan xilka laga tuuray tan iyo wixii ka dambeeyay isbedelkii ka dhacay gudaha wadanka Suuriya ee Turkigu uu hormuudka ka ahaa gudaha maamulka Israa'iiliyiinta waxa ka jira warwar weyn oo ay wajahayso kaasoo aanay hore u arkin inkasta oo labada cadowga ugu waaweyn ee ka jiray bariga dhexe ay kala ahaayeen Israa'iil iyo Iiraan kaasi oo midiba midka kale u arkaya cadaawadda ugu weyn uu wajahayo inkastoo Iiraan iyo Israa'iil aanay marna gelin dagaalka foolka fool hase ahaatee mar walba waxay hawada isku marinayeen fariimo kala duwan oo iyaga oo quri ay isku fahmayeen dhinaca hubka iyo sidoo kale siyaasadda dhaqaalaha iyo saameynta ay dunida ku leeyihiin intuba waxay ahaayeen fariimaha isku fahmayeen 10 sano ee u dambeeyay Iiraan waxay sameeysay horumar dhinaca hubka ah Israa'iil sidaas oo kale hase ahaatee haatan waxa ku soo biiray wadanka Turkiga oo gudaha Suuriya ka abaabulaya kacdoon uu doonayo inuu ku abuuro siyaasad salbalaaran oo Turkigu uu doonayo inuu bariga dhexe kaga abuuro xulufo isagu uu hoggaanka u hayo taasoo u badan wadamada muslimiinta ah ee ku yaala bariga dhexe iyo sidoo kale bartamaha qaaradda Aasiya kuwaasoo Turkigu uu doonayo inuu isagu hoggaanka u qabto isla markaasina uu danihiisa siyaasadeed iyo kuwiisa dhaqaalaba ku fushado isagoo dhinaca kalena ka taageeraya iyagu waxay uga baahdaan gaar ahaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha labadaba Turkigu waxa uu haatan qaadayaa talaabooyin Israa'iil si weyn uga walwalsan tahay kuwaasi oo uu doonayo inuu gudaha wadanka Suuriya uu ka sameeyo saldhigyo militari oo ka howlgalo saldhigga T4 oo ku yaala gudaha wadanka Suuriya ayuu durtabageeyay horaantii ugu horeysay ee hubkii halkaasi uu kaga howlgali lahaa Israa'iil haatan waxay dareemaysaa cabsidii ugu weyneed ee abid soo wajahda iyadoo dareemaysa inuu Turkigu isku ballaadhinayo bariga dhexe oo ku hareeraysan mandaqada ay ku nool yihiin maamulka Yuhuud ra'iisul wasaaraha Israa'iiliyiintu waxa uu dhawaan u duulay wadanka Mareykanka isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha cusub ee wadankaasi Donald Trump waxaanu kala hadlay siyaasadda arrimaha dibadda Israa'iil iyo waliba saameynta Turkigu uu ku leeyahay bariga dhexe hase ahaatee madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump sidii uu doonayay ugama jawaabin su'aashii ra'iisul wasaaraha Israa'iil nin wanaagsan ayuu ku sheegay madaxweynaha Turkiga sidoo kale waxa uu sheegay inay saaxiib yihiin waxaanu sheegay inuu Mareykanku si weyn ugu tiirsan yahay hilibka ka yimaada wadanka Turkiga isagoo waliba taa ku daray inuu nin dhiiran oo adkaysi leh uu yahay madaxweynaha Erdogan ee wadanka Turkigu taasina waxa ay dhalisay in Israa'iil biyaheeda dib u liqdo hase ahaatee may dhammaan wali khatarta ay Israa'iil ka filanaysa bariga dhexe wadanka Turkigu waa qunyar socod siyaasadiisu ay qabowdahay isla markaasina inta badan waxa uu raadraaca hadba halka uu ka fulinayo arrimihiisa siyaasiga ah ee arrimaha dibadda waxay u muuqanaysaa Turkigu inuu sugayo fursad gaar ah oo la sugayo Israa'iil isagoo aan marnaba tallaabo ka qaadin xasuuq kasta iyo dhibaato kasta oo Israa'iil ay ka fulinayso bariga dhexe hase ahaatee siyaasadda wadanka Turkiga ayaa ku qotonta inuu la sugayo maalinta Israa'iil ugu jilicsan tahay oo uu doonayo inuu kaliya la eegto fursadda ay ugu nugul yihiin Israa'iiliyiintu isaguna intaasi uu isdiyaarinayo marka la eego siyaasadda uu ka wada bariga dhexe oo la heshiinayo wadamada Carbeed iyo kuwa aan Carabta ahayn ee ku yaala bariga dhexe sidoo kale wadamada Islaamka ah ee bariga dhexe waqooyiga Afrika iyo sidoo kale bartamaha qaaradda Aasiya intaasiba waxay u muuqanayaan inuu Turkigu diyaarinayo xulafo aan hore loo arag
taasina waxa ay tilmaamaysaa inay wadamada islaamku yeeshaan quwad militari oo u dhiganta midda NATO ee wadamada reer Yurub ee Turkiguna uu ku jira ay wadaagaan taasoo ka dhigaysa inay wadamada islaamku iska kaashan karaan waxyaabo badan oo ay hawlgallada militari ku wada fulin karaan tusaalayaasha haatan dib loo soo qaatana waxa kamid ah saldhigyada militari ee uu Turkigu ka sameysanayo wadamada Carabeed ee ku yaala bariga dhexe taasina waa midda haatan ku abuurtay Israil qadiyadeedii inay dib u bedesho iyada oo haatan ka diyaar garoobaysa khatar labaad oo ka soo wajahday jaarkeeda Turkigu waxa uu diyaarinayaa nooc kasta oo hub ah oo uu ku dagaalami karo mustaqbalka isagoo xoogga saaraya dhinaca hubka tiknoolajiyada casriga ah ku shaqeeya oo markii hore Israil oo kaliya adeegsan jirtay hase ahaatee haatan u muuqanaysa in kaalinta koobaad lagala wareegi doono samaynta hubka noocyadiisa kala duwan ee casriga ah Israil taasoo markii hore Israil looga dambeyn jiray inay soo saarto hubka noocyadiisa kala duwan ee casriga ah hase ahaatee haatan warshadaha Turkiga ayaa suuqa kula tartamaya iyaga oo soo saaraya diyaarado noocyo walba leh kuwaas oo intooda badan ay yihiin diyaaradaha iswada ee aan cidi kaxaynin sidoo kale wadanka Turkiga ayaa haatan suuqeynaya diyaaradihiisa dagaalka ee drone-iska kuwaas oo intooda badanba uu ka iibiyay wadamada uu saaxiibka dhow la yahay gaar ahaan kuwa muslimka ah Soomaaliya ayaa kamid ah wadamadii ugu dambeeyay hubkaasi uu siiyay hase ahaatee ka hadlimayna haatan wadanka Soomaaliya diyaaradaha ay ka heleen wadanka Turkiga hase ahaatee waxaynu xoogga saaraynaa khatarta ugu weyn ee haatan ay Israil wajahaysay salka ka dhigi ladahay inkasta oo Turkigu uu si weyn u diyaar garoobayo haddana waxa uu sugayaa inuu mar uun la eegto fursadda ay ugu jilicsan tahay Israil isaguna taa bedelkeeda uu dhisayo ciidamadiisa cirka dhulka badda iyo sidoo kaleba kuwa loo adeegsado hawlgallada gaarka ah ee kala duwan sidoo kale Turkigu waxa uu fogeynayaa saameyntiisa uu ku yeelanayo bariga dhexe iyo dunida islaamka inteeda badanba isagoo oo galaangal siyaasadeed la yeelanaya wadan kasta oo uu dantiisa ka dhex arko taasoo haatan la dareemayo inuu wadamo badan oo ku yaala galbeedka iyagu waqooyiga qaaradda Afrika iyo sidoo kale wadamo badan oo iyagana ku yaala bariga dhexeba uu ku leeyahay saldhigyo militari oo halkaasi uu ka howlgeliyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee dhinaca militariga Israil waxay ku baaqaysaa inuu Turkigu yahay khatarta kaliya ee haatan ay wajahayso maadaama oo Turkigu uu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba kaga awood badan yahay Israil maadaama oo wax soo saarkiisu uu ka sareeyo midda haatan Israil ay soo saarto hase ahaatee haddana marnaba Turkigu kuma milmin siyaasadaha bariga dhexe muu gelin dagaalada ay isku hayaan wadamadaasi inkasta oo mararka qaarkood taageero ka geysto taasina waa midda Israil ku abuurtay cabsida weyn sababta uu Turkigu uga aamusan yahay dagaalada ka soconaya bariga dhexe ee kuwa qasa ay kow ka yihiin waxa Israil ula muuqanaysaa inuu damacsan yahay go'aan qaadasho aad u laxad weyn taasoo dhaawici doonta mustaqbalka Israa'iiliyiinta gabi ahaanba